saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Filimkeenu wuxuu ku bilaabanayaa dukaan lagu iibiyo hilibka, halkaas oo Fisanta iyo xaaskiisa ay hawshooda si caadi ah u wataan. Mar qurana waxa ayaga soo weeraray dad la yiraahdo Virginiskuna waxay ahaayeen dad aan cunin hilibka xoolaha iyo shay kasta oo lagu sameeyo hilibka xoolaha. dadka aan hilibka cuninna dukaankan waxay u weerareen waxay aaminsanaayeen in halkaan xoolaha loogu geysto tacadiyo badan. sidoo kalena dadka aan hilibka cunin waxay ka soo horjeedeen in la qalo xoolaha. dhanka kalena Fisanta wuxuu bilaabay inuu garaaco mid ka mid ah raggii dukaankiisa soo weeraray. intaa dabadeedna Fisanta iyo xaaskiisa waxay galeen xaalad xun maadaama dukaankoodii burbur xooggan loo geystay. sidoo kalena ay shaqadoodii istaagtay. dhinaca kalena muuqaalka xiga waxaan aragnaa lamaano kale kuwaas oo ayagana ka ganacsada hilibka, waxayna ka ganacsiga hilibka ka sameeyaan lacag aad u fara badan. sidaa darteedna waxay bilaabeen inay shaqadooda uga faaloodaan Fisanta iyo xaaskiisa. intaa dabadeedna Fisanta iyo xaaskiisa waxay doonayeen inay dib ugu laabtaan gurigooda maadaama uu arkay saaxiibkiis Maag iyo xaaskiisa oo shaqadooda ku faraxsan. intuu Fisanta wadada ku socdayna wuxuu arkay mid ka mid ah raggii shalay soo weeraray dukaankiisa oo wato baaskiil. intaa dabadeedna Fisanta ninkii ayuu gaariga jiirsiiyey. Fisantana wuxuu u malaynayaa in wiilku uu dhaawacmay balse wuu dhintay. intaa kadibna Fisanta aad ayuu u naxay, xaaskiisana wuxuu ka codsaday inaysan arrintan la wadaagin booliska. sidoo kalena boolisku markay arrintan wax ka weydiiyaan ay ku jawaabto inay shil ahayd, balse xaaskiisa way ka diiday arrinta, waxayna u soo jeedisay in meydka uu meeshan ka qaado. markuu guriga yimidna wuxuu bilaabay inuu kawaano meydkii uu cadcadna u kala jaro. intaa kadibna wuxuu bilaabay in meydka hilibkiisa uu siiyo eygiisa. eygiina wuxuu bilaabay inuu cuno hilibka. Fisantana arrintaa aad ayuu ula yaabay. intaa wixii ka dambeeyana hilibka meydka intiisa ugu badan wuxuu siiyey eygiisa. arrintaasna sidoo kale fikrad kale ayay ku dhalisay. intaa dabadeedna wuxuu aaday xaaskiisa si uu ula wadaago fikradda, balse maadaama ay xilli dambe ahayd way seexatay. maalintii xigtana hilibka meydka wuxuu ku kaydiyey talaajada dukaanka markuu jarjaray kadib. intaa dabadeedna xaaskiisu waxay si qaldan hilibkii bil'aadanka uga iibisay mid ka mid a macaamiisha. Fisantana markuu arrintaa ogaaday aad ayuu u baqay. dhinaca kalena kostamarkii ayaa mar kale ku soo laabtay dukaanka, wuxuuna sheegay in hilibkii shalay laga iibiyey uu aad u macaanaa. markay xaaskiisu hadalkaa maqashana waxay bilowday inay cunto hilibka, waxayna dareentay in hilibkan uu aad u dhadhamaayo. intaa dabadeedna Fisanta xaaskiisa wuxuu u sheegay in hilibka ay cuntay uu yahay mid bil'aadan. xaaskiisana markay hadalkaa maqashay aad ayay u calaacashay. dhinaca kalena kostamar badan ayaa soo dalbaday hilibkii macaanaa. dad badan ayaana dukaanka u yimid si ay u iibsan lahaayeen hilibkaas. xitaa booliska ayaa iibsanaya hilibka ayagoo aan garanayn in hilibkan uu yahay mid bil'aadan. sidoo kalena hilibkii oo dhan ayaa hal mar u gadmay maalintaas, waxayna heleen lacag aad u fara badan. habeenkii markii la gaarayna Fisanta asna wuxuu baraaweeyey hilibkii, wuxuuna ogaaday in hilibka dadka uu aad u macaan yahay. intaa kadibna shaqadooda si ay kor ugu qaadaan xaaskiisa waxay asaga u soo jeedisay inuu dilo dadka aan cunin hilibka. Fisantana wuxuu aad ugu riyaaqay fikradda. maalintii xigtana gurigooda waxaa soo booqday gabadhooda iyo saaxiibkeed. intaa dabadeedna waxay ogaadeen gabadhooda saaxiibkeed inuu ka mid yahay dadka aan cunin hilibka, sababtoo ah waxba kamuusan cunin gurigooda. xaaska Fisantana markay ogaatay in wiilka uusan waxba cunin waxay asaga siisay dhalo biir ah, balse wuxuu u sheegay inuusan cabin khamriga keliyana uu cabo cabitaanada caadiga ah. intaa kadibna xaaska Fisanta mar kale waxay u keentay keeg, balse ma uusan cunin wiilka ukunta ku jirta awgeed. arrintaa darteedna Fisanta wuxuu bilaabay inuu nacayb daran u qaado dadka aan cunin hilibka. intaa kadibna wuxuu go'aansaday inuu ugaarsado ayaga si uu uga ganacsado hilibkooda. intaa dabadeedna dhammaantood waxay isku raaceen hoteel lagu iibiyo cuntooyinka khudradda abis, waxaana halkaa dhoobnaa dad badan oo aan cunin hilibka. markay hoteelka ka soo baxeen kadibna Fisanta wuxuu qorsheeyay inuu weeraro dadka halkan jooga, sidoo kalena uu dilo nin meesha joogay. balse si kastaba ha ahaatee wuxuu awoodi waayey arrintaa inuu sameeyo kadib markuu ka baqay in la dilo asaga. sidaa darteedna isla markii goobta ayuu isaga cararay. intaa kadibna xaaskiisu waxay asaga u sheegtay inay waajib tahay inay ugaarsadaan dadka, kadibna ay hilibkooda ka ganacsadaan si ay u helaan lacag badan. maalintii xigtana waxay isku dayeen inay dhex galaan bulshada aan hilibka cunin si ay uga mid noqdaan. riwaayadan oo dhanna waxay u samaynayeen siduu qorshahooda ku hirgeli lahaa. intaa kadibna mid ka mid a dadkii aan hilibka cunin ayaa aaminay ayaga, sidoo kalena wuxuu u ogolaaday inuu si qaasa ula kulmo ayaga. Fisanta iyo xaaskiisana ma doonayn inay fursadan beerdareeyaan,
sidaa darteedna waxay la kulmeen wiilkii balse arrinta lama filaanka waxay ahayd ninka dhalinyarada inuu soo kaxaystay asxaabtiisii oo dhan sidaa darteedna waxaa fashilmay qorshahoodii dhinaca kalena kooxda Virginiska waxay soo xadeen furo dukaan lagu iibiyo hilibka waxayna doonayeen in dukaankaas ay burburiyaan sidaa darteedna waxay soo xirteen maaskaraatiyaal intaa dabadeedna waxay aadeen dukaankii halka Vicente iyo xaaskiisa ay la socdeen ayaga intaa kadibna markay dukaankii gudaha u galeen Vicente iyo xaaskiisa waxay ogaadeen in dukaankan uu yahay kii saaxiibkood Mark waxnana kama qusaynin ayaga dhinaca kalena kooxda aan hilibka cunin markay burburiyeen dukaanka waxay iskaga baxsadeen goobta waqti kadibna ninkii dukaanlaha ah wuxuu wacay booliska kadib markii burbur xoogan loo geystay dukaankiisa intaa kadibna saraakiisha booliska waxay asaga u sheegeen inay hayaan muuqaal ay duubtay kaamirada dukaankiisa sidoo kalena waxay asaga u sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo qaban doonaan dadka falkan ka dambeeyay dhinaca kalena xaaska Vicente markay kaligeed noqotay waxa uu yimid wiil kabalyeeri ah wuxuuna bilaabay inuu ayada ula hadlo si aan caadi ahayn intaa dabadeedna waxay ogaatay in wiilkan uu ka mid yahay dadka aan cunin hilibka aad ayayna ugu faraxday la kulankiisa intaa kadibna waxay raacday mootadiisa si uu u geeyo gurigeeda markay guriga gaareenna waxay ka codsatay in cabaara inuu ku sugo bannaanka intaa dabadeedna waxay gudaha u gashay guriga waxayna ninkeeda u sheegtay inay u keentay mid ka mid ah dadka aan cunin hilibka sidaa darteedna waa inaad ka faa'iidaysataa fursaddaas oo aad dishaa Vicentena markuu hadalka maqlay wuxuu si dhaqsiyo u soo aaday bannaanka si uu u dilo ninka markuu ninkii la kulmayna wuxuu u sheegay inuu sugayay xaaskiisa intaa kadibna Vicente wuxuu weeraray ninkii halka ayuuna ku dilay intaa kadibna wuxuu bilaabay inuu jarjaro ninka meydkiisa si uu uga ganacsado sababtoo ah hawshan hadda agtiisa waxay ka noqotay mid uu si joogto ah u qabto intaa dabadeedna waxa u fududaatay ka ganacsiga hilibka dadka sidoo kalena waxay noqdeen dilaayaal ku raaxaysta xasuuqa iyo laynta dadka dhinaca kalena maadaama ay macaamiil badan heleen waxay sare u qaadeen qiimaha ay hilibka ku iibiyaan si ay u helaan macaash badan intaa dabadeedna maalin maalmaha ka mid ah waxay isku dayeen inay ugaarsadaan wiil ciyaartoy ah kaasoo ka mid ahaa dadka khudrad cunayaasha ah laakiin wiilka wuxuu dareemay in dadkan ay khatar badan yihiin maadaama uu aad u feejignaa goobta ayuuna isaga baxsaday maalintii xigtana lamaanahan arxanlaawayaasha ah waxay casho u yimaadeen guriga saaxiibkood Mark hilibka ay meesha ku cunayeenna wuxuu ahaa hilib ay meesha la yimaadeen kaasoo ahaa hilib bilaadan dhinaca kalena Mark iyo xaaskiisa waxay aad ula yaabeen dhadhanka aadka u macaan ee hilibkan haddana arrintu way isbedeshay maadaama ay markii hore ay saaxiibadan kulmaan Mark iyo xaaskiisa ay faani jireen balse hadda waxaa shaqadooda ku faanaya Vicente iyo xaaskiisa kuwaasoo ku faraxsan shaqadooda dhinaca kalena Mark iyo xaaskiisa intay hilibka cunayeen waxay ka dhaxeleen qalab intaa kadibna waxaa bilowday muran u dhaxeeya lamaanayaasha kaasoo markii dambe isku bedelay dagaal weyn intuu dagaalka socdayna Vicente wuxuu dhagta ka qaniinay Mark halka Mark iyo xaaskiisa markay arrintan arkeen ay aad ula yaabeen halka Vicente si uu uga fogaado in laga shakiyo uu tufay cadkii uu ka goostay dhagta saaxiibkii muuqaalka xigana waxaan aragnaa Vicente iyo xaaskiisa oo booqday carwo taasoo kaliya ay yimaadaan dadka aan cunin hilibka waxayna halkan u yimaadeen inay ugaar wanaagsan raadsadaan war kuwaan dadka ha laga qabto intaa kadibna ninkii Vicente ahaa wuxuu meesha ku arkay gabar buuran wuxuuna rabay inuu ku waliimaysto balse si lama filaana waxaa meesha u yimid gabadhoodii iyo saaxiibkeed intaa kadibna waxay aad ula yaabeen in waalidiintood ay halkan ku arkaan intaa dabadeedna gabadhooda saaxiibkeed ayaa ayaga weydiiyay waxa ay halkan ka sameynayaan balse wax jawaab ma siinin ayaga dhinaca kalena ma aysan doonayn inay halkan faramarnaan ka tagaan sidaa darteedna waxay ugaarsadeen gabadhii xusul baruurta ahayd habeenkii markii la gaarana Vicente wuxuu diyaariyay hilibka gabadha si uu u iibiyo maalinta xigta dhinaca kalena taliyaha booliska wuxuu u yimid asaga si uu Vicente ugu wargeliyay inay jiraan kiisas badan oo ku saabsan dad la laayahay intay arrinta ka wada hadlayeen waxaa meesha yimid aygii Vicente kaasoo wata gacantii gabadha kadibna Vicente markuu arrinta arkay aad ayuu u argagaxay wuxuuna aaminay in ciyaartiisii ay halkan ku soo dhamaatay goor dhowna gacanta lagu dhigi doono asaga intaa kadibna wuxuu isticmaalay maskaxdiisa wuxuuna ku guuleystay inuu halkan ka baxsado intaa dabadeedna markuu guriga yimid arrintii wuxuu la wadaagay xaaskiisa sidoo kalena wuxuu ayada u sheegay in hawshan uusan hadda kadib sii wadi karin wuxuu kaloo xaaskiisa u sheegay inuu arrintan ku waalan rabo sidaa darteedna ay lama huraan tahay inuu iska daayo intaa dabadeedna xaaskiisu waxay ku guuleysatay inay niyadda u dejiso asaga waxayna mar kale ku qancisay inuu hawsha ka sii wado halkan dhinaca kalena gurigooda waxaa yimid gabadhooda saaxiibkeed wuxuuna doonayay inuu ka raali geliyo su'aalihii qaabta darnaa uu weydiiyay markii ay joogeen carwada
intaa kadibna Fisanta xaaskiisa waxay bilowday inay u dhawaato wiilka halka Fisanta asna uu xaqiiqsaday inay xaaskiisa doonayso inay disho wiilka sidaa darteedna Fisanta wiilkii wuxuu ku amray inuu halkaan isaga tago waana wadada kaliya uu ku badbaadin karay wiilka maalintii xigtana macaamiil badan ayaa timid dukaanka si ay u iibsadaan hilibkii macaana intaa kadibna Fisanta macaamiishii wuxuu u sheegay inuusan haynin hilibka hadda wixii ka dambeeyana aan la heli doonin macaamiishuna markay hadalka maqleen waxay bilaabeen inay goobta isaga tagaan halka Fisanta xaaskiisa ay ku andacoonayso inay wajihi doonaan in dukaankooda uu ku laabto sidoo markii hore ahaa sidoo kalena ay gali doonaan maalmo xun Fisantana markuu hadalka maqlay aad ayuu u carooday goobta ayuuna isaga tagay bixitaanka Fisanta kadibna dukaanka waxa yimid qolyihii aan hilibka cuni jirin intaa kadibna waxay bilaabeen inay burburiyaan dukaanka sidoo kalena waxay ogaadeen in dukaankan ay leeyihiin Fisanta iyo xaaskiisa sidaa awgeedna waxay afduubteen xaaska Fisante dhinaca kalena Fisanta markuu ku soo laabtay gurigiisa wuxuu arkay gaari ay leeyihiin dadka Virginiska ah kaasoo taagan guriga banaankiisa wuxuuna dareemay inay wax xun halkaan ka dhaceen dhinaca kalena kooxdu markay doonayeen inay dilaan xaaskiisa Fisante ayaa goobta yimid wuxuuna weeraray kooxdii asagoo adeegsanaya midiyo af badan sidoo kalena wuxuu ku guuleystay inuu laayo dhammaan dadkii halkaa joogay intuu dagaalka socdayna Fisante waxaa soo gaaray dhaawac culus ugu dambeyntiina xaaskiisa waxay dishay ninkii ugu dambeeyay ee dadka Virginiska ahaa sidoo kalena waxay badbaadisay ninkeeda intaa kadibna goobta ayay isaga baxsadeen markay laayeen dad aad u fara badan waqti kadibna booliska ayaa soo qabtay ayaga xabsi daa'in ayaana lagu xukumay dhab ahaantiina Maag wuxuu booliska u sheegay inuu Fisanta ka shakiyay maalintii uu dhagta ka qaniinaya asaga filimkeenina sidaa ayuu ku soo dhamaaday haddii aad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe dheh waad ku mahadsan tahay la joogistaada